بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan ka hadlayaa sida wax ila muuqdaan iyo sida ila tahay wixii u arka in hadalkayga wax ka qaldan yihiin anoon qofna aan rabin inaan u xadgudbo ama dad kale ku xadgudbo sida ila tahay waan rabaa inaan ula hadlo ummadda Soomaaliyeed wixii marka warkaygaas ka khaldan igala soo xiriireen taleefankayga oo ah 8 4 3 3 9 3 6 Mareykankan jooga magaalada Columbus marka fadlan wixii hadalkaygaas ka qaloocan halka igala soo xiriira intaas kadib waxaan rabaa inaan la hadlo ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ay dib badan baad soo marteen oo aad u tiro badan dib in lagu jirana ummadda dan uma aha dawladda dhalatay in la taageero yaan qaba oo dawladda la taageero si ay u istaagto saasan qaba saasan ummadda Soomaaliyeed kula talinayaa taageera wax kasta oo qof sheeganayo ama beelu sheeganayso ilaahay baa wax qancin kara in la taageero oo marxaladda lagu jiro qalafsan laga gudbo oo wax la wada hagaajiyo qof kaliya wax ma sameyn karo dawladuna kaligeed wax ma sameyn karto shacbiga Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa dawladdaas la soo dhaweeyo hal la taageero waqti waxay iska jirtaa ama iska waqti yara haddaan ayada la taageerina wax dambe oo soconaya ma jiraan waayo tu walba ayadoo kale noqonaysa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ku waaninayaa dawladdaas in la taageero taas intaasaan kaga baxa waxaan u gudbahayaa dawladda laftigeeda dawladda dib badan yaa dawladda hortaagan hawl badan baad gacmaha la gasheen xaaladda Soomaaliya meesha marayso waa garanaysaan dadaal badan baa loo baahan yahay samir badan baa loo baahan yahay socod badan baa loo baahan yahay isu soo jiid badan baa loo baahan yahay la hadal badan baa loo baahan yahay wax tiro badan baa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed gogol la fariista ummadda Soomaaliyeed meel kasta ugu taga ummadda Soomaaliyeed la hadla ummadda Soomaaliyeed la shira ummadda Soomaaliyeed ugu soo dhaweeya nabad koox iyo beel iyo qof iyo urur iyo geed iyo guri iyo gobol meel kasta ummadda Soomaaliyeed nabad doon u noqda raadiya nabad doon saasan kula talinayaa taa intaasaan kaga baxa waxaan u soo gudbahayaa al-shabaab waxaad u dagaalamaysaan hadday tahay diin in ummadda Soomaaliyeed lagu dhaqo diinta islaamka ummadda Soomaaliyeed dad islaam way waa dad diinta ku dhashay ku dhaqan ku dhaqma in wax ka khaldan yihiin waa laga yaabaa ku dhaqanka diinta islaamka laakiin sidii loo toosin lahaa ma qabo inay tahay in xabad la dhaco ma qabo waxaan qabaa in si dadka waaweyn si far waaweyn dadka wax loogu dhigo dadku wax badan buu isugu jiraa waa dad iska reermiya waa dad iska aqoon yar waa dad diinta si fog aan ugu dhaqmi jirin waa dad u baahan in wax walba loo sheego kadis iyo dil iyo ul iyo xabad durba laguma fahamsiin karo waxaa la rabaa in dadka si degan si qabow wax loogu sheego caruurta aad dhashay haddaad dhahdo mid tuko aabba salaada tuko haddaad tiraahdo oo aad dhowr jeer ku celceliso ma uulayn kartid haddaad uuleyso wuu sii fogaan wuu sii cararahayaa inaad madaxa u salaaxdo aabbo salaadu waa fiican tahay micno badan aad u sheegto jannaa lagu galaa ilaahay baa loogu dhawaadaa salaada tuko ilaa marka dambe aad gaarto inaad laaluush ku bixiso aad ma taqaanaa xoogaa shilamaada intaas sadhado aabbo tuko salaada tuko asaas dhahay laakiin haddaad ul la dhacdo oo aad ul u qaadato disho oo uleyso waa si xumaanayaa qofkii inuu ka fogaada laga yaaba diinta dadka si qabow in loogu sheego si maslaxad ku jirto si soo dhaweyna si nasteexa in loogu sheegaa la rabaa laakiin ma tukatay maxaa u tukan weyday gaal baa tahay ma aha dawladda hadda waxa ku dhawaaqday in shariicada diinta islaamka dawladda lagu dhaqayo
هدي شريعة الإسلام كهدي الديدو وحكى في عنه الآن هي محيي قفك شريعة الإسلام كديدة دين الإسلام قفك الديدة محور ربع محور دون هي مد قالوا ربع إنه وحلو رقم صورة قل معها هدي الدولة دي سداتري وعارفين وناكسن وي كسر دوادة ها إنكرنا وشد كليين ها أورانينا وبين ها أورانينا ودوادو سيربتان إن لو حقيقية أدين كلفتجينه سيد الدولة وقدر واقع إن الدولة وقدر وين إن أي حالات كالكوضته وها أورانينا إنتان ميل استاكتان حالات بكوضته رون كما ها أورانينا وإما هذا شريعة الإسلام كوا حالات لجوضان كرامها ولا وذا يقانا ولا وذا كرنا هيا سيدا اللوقاتي باللوق رقم هيا سي نبدل كرامها كتابك الدين القرآن كان كتابك إلهي نم بدل كرو حديثك نم بدل كرو ولا وذا يقانا من بدل ميسو ساسا لا هاي إن dadka saas wax loogu sheego dawladana lagu soo dhawaado shariicada diinta islaamka hadii aad u dagaalameyseen la qaatay hadii aad diidaan oo inta diidaan hadii dadku si kale u fakaraya waxa loo fakaraya ujeedadiina inay ahayn shariicada diinta islaamka in lagu dhaqmo in balaayo kale jirto in ujeedo kale leeyahay in ummad kale waxaan ka dambayso in si kale loo qaadanaya marka taasi sidii u beenowdo ummadda dhiigeeda waxaraan qof la dilo dunuub ka xoog badan oo ka sareyn kartaa ma jirto meelna laguma gaari karo intaasaan qoladan al-shabaab kana oran lahaa inay yeelaan waxa soo haray dawladda Djibouti iyo shacbigeeda mahadnaq weyn baan anigu u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed inay u soo jeedisana la gudboon awoodteeda ka badan bay qabatay saan isleeyahay dad wax ka sheeganaya way iska jiraan hawsha ay wadaan waayo waxa waa laga sheegan karaayo dad bilowaniyan aadami dad ma qancin karo ilaahay baa wax qancin kara laakiin qof ay dawlad dad qancin karta ma jirto laakiin waxaan qabaa inay dadaalkeedii ay dadaashay awoodeeda mid ka badan dawlad iyo shacbi iyo xukuuma ay ka wada qayb galeen Soomaali inay nabadoon u noqdaan gobol u fidiyaan heshiisiyaan inay isku awoodooda mid ka badan isticmaaleen baan qabaa mahad weyn baan u celinayaa taana intaasan kaga bax waxaan galahayaa jabhadda ka dagaalamaysa soonka shanaad oo Soomaalida la baxday magaca ogaadeen marka ugu horeysa jabhaddu ma qabo in ay ku dagaalanto magac qabiil Soomaaliya isku jirta oo wada socota yaa ka wanaagsan san qabo in magac beeleed lagu dagaalamo dhulkuna dhul Soomaaliyeed weeye ummadda degan ummad Soomaaliyeed weeye ummad beel kaliya ma degana beel kaliya wadanka ma xoreyn karto waxaan qabaa in wadankii ummadda Soomaaliyeed wadan ay leedahay magac Soomaaliyeed in la qaato yaan qabaa anigu waayo magac qabiil waxba oo gaara qoys waxba natiijo ma gaari karo guul ma gaari karo khaladna waa ka iman karaayo hawlgal ahaanna waa u khaldami karaa siyaasad ahaanna waa u khaldami karaa waayo hawlgal ahaan waxa soo baxaya percentage yar baa soo baxaya waxa laga yaabaa dadka dagaalamaya hadda 2% inuu yahay 2% haduu yahayna 1% inuu dhaawac iyo dhimasho noqdo hal awoodiisu waxba ma noqonaysa markaas Soomaalida kala laftiyooda gobolka wax ka deganayd markay magaca maqlaan waa ka masayri karaan inay dagaalku wax ka gelin ma dhici karta awoodii dagaalku marka waa yaraanaysa hawlgalka dagaalku waa khaldamaya dhan siyaasi ahaan markii loo eegana waa khaldami kartaayo dadka laftigiisii markuu arko magacaan inuu yahay magac beeleed oo dhulka wax ka degan waa ka fogaan karaa jabhadda iyo beeshaas xagga dawladda dhulka haysata iyo u gudbi karaa oo xaggaas xiriir la samaysan karaa taasuna dawladda laftigeeda dhulka haysata waa taageeraya in dadkii Soomaaliyeed kala jabo oo qaar ayaka u yimaado halkaas siyaasi ahaan waxa laga yaabaa in targetku siyaasaddu khaldama dhici karto marka waxaan qabaa si kastoo dagaal aan faa'iido lagu gaarin dagaalka laftigiisa baan mid aad moodaa cilmiyeysan inuu san ahayn waayo dagaalku hawlgal ahaanna waa loo qorsheeyaa target ahaan iyo siyaasi ahaanna waa loo qorsheeyaa waxaan moodaa hawlgal ahaanna inuu dagaalku u khaldan yahay siyaasi ahaanna u khaldan yahay waayo ummad Soomaaliyeed weeye
laga soo bilaabo xadka dawladda Djibouti la leedahay Ethiopia la soo wareejiyo lagu keeno qorrax u dhac xadka dawladda Kenya Ethiopia la leedahay ilaa dhumuc 1 kilomitir Soomaali baa degan Soomaali tiro badan way ogaadeen ma degana gobolka kaligiis wuxuu noqon karaa markii la eego Soomaalida markii qiimeyn la sameeyo 40% muu noqon karaa marka ma aha 40% inay 60 liqda ma aha marka waxaad moodaa arintaas kulay shakhsiyan arintaas hawlgal ahaan inay u khaldamayso siyaas ahaan u khaldamayso wadan Soomaaliyeed weeye ummad Soomaaliyeed baa degan waa soonka shanaad waa dhul Soomaaliyeed dhul beel kaliya oo Soomaaliyeed degantay ma aha dhammaan beelaha Soomaaliga ka kooban tahay degan awoodna ku leh oo waliba 20 sano ugu dambeeyay si awooda ay u gashay Soomaali dhulka soonka shanaad oo Soomaalidu deganta marka ma noqon karto dhul beel kaliya degantahay laguma qanci karo sida hadda loo micneeyo kombiyuutarku ku jira iyo isticmaar baa galiyo kombiyuutarkana waa wax qof galiyo qof baa ka shaqeeya qof baa wax galiyo qof baana ka bixiya marka hadal justificata ma noqonayso waa la galiyay waana laga bixin karaa isticmaar baa magaca u baxshay rabay in uu Soomaali la kala gooyo in qoyskaas kaliya la faquuqo in Soomaali weyn buu diidahay inuu yiraahdo dhulka Soomaaliyeed way oo asagoo Soomaali fogeynahay marka wixii isticmaalku sameeyay oo yeeriyay in yeeriskiisa aan yeelno raacno kuma qasbanin waanu ka bixin karnaa waxaanu sheeganaynaa inaan nahay waxaanu sheegan karnaa inaan dhalno Soomaali waa dhulka iskale Soomaali waana leh marka taasaan anugu soo jeedinayaa in aan magacaasu hawlgal ahaan u khaldami karo siyaas ahaan u khaldami karo Soomaalida laftigeeda sharci bay u dhigatay 60kii la dejiyay oo Soomaali weyn la yiri laftigiisa waxaad moodaysaa in Soomaalida laftigeedu arintaas mustaqbalka la oran karo ma taqaan dhulkaasu waa in sharciga la bedelo waa mid imaan karta markii dadkii deganaa ay magaca la baxaan oo dadkii kale xoogaa ma taqaan la takooro marka waxaan filahayaa in arintaas ay u baahan tahay in dib loogu noqdo oo laga fakaro si kasto xaaladda hadda taagan oo ay fiinaan lahayd in ayada laftigeeda la qorsheeyo la yiraahdo war dagaal ahaan arinta dhan kale ma loo wareegaa dagaalku ma socon karaa guul ma loo gaari karaa dadka dagaalamaya intee la eegyahay sabood maxaa la haystaa saldhig maxaa la haystaa yani ayada laftigeedu in fiican tahay in hataa namadoonnimo la sameeyo oo dhan kale looga wareega ayada laftigeeda wanaagsan ayada laftigeeda in la dagaalamo ma aha la jeeyo dagaalku marna waa fuli karaa marna ma fuli karo taana intaasaan ka oranahayaa sidaas baan ku talinahayaa magacayga waxaa la dhahaa Sulub Cali Nuur